ها aqooyan Ismaan Khayre oo ku sugan dalka dibadiisa ayaa baaqna u diraya beelaha isku haya deegaanka Qoondhaale ee gobolka Cayn iyo sidoo kale xaaladda ka soo cusbanaatay magaalada Buuqodle ee xarunta gobolka Cayn aqooyan Ismaan Khayre la soo xiriiray shabakada wararka ee Buuqodle media Ismaan Khayre aqooyan soo dhaw ودوهاي حسين adiga iyo shabakada warbaahinta magaalada Buuqodle ee gobolka Cayn iyo dhammaan dadka reer Caymeed ee degmada Buuqodle inta way salaamaya waxaan leeyahay maalin iyo habeen wanaagsan waaye aqooyan bal xaaladan way soo noqotay beelaha isku hayaan ama dagaaladan dhacaya ama dilalkan dhacaya maxaad baaq u diraysaa Ismaan Khayre marka ugu horeysa waxaan leeyahay shilkii iyo geeridii xalay ka dhacday Qoondhaale waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dha'iqatul maut horeysa waxaan leeyahay geeridii iyo dhaawicii ka dhacay xalay magaalada Qoondhaale marka ugu horeysa waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa ka tacsiyeynaya wiilkii halkaa xalay gacanta ka xaqdaray ku dishay reerkii iyo waalidiintii iyo eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii runtii uu ka geeriyooday waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo dhammaanteedna dadka reer Caymeed sameynaya dibadda iyo gudaha samir iyo iimaan Allah ka siiyo isagana naxariistii janno Allah geeyo dadka kale waxaan leeyahay marka ugu horeysa dadka labada qoys ee walaalaha ah ee runtii arrimahoodu in badan soo noqnoqonayeen qolada horta xalayto nabarku ku dhacay waxaan leeyahay isxakameeya sabirka adeegsada gobonnimo iyo dulqaad awalba aad ahaan jirteen baa maantana laydinka baahan yahay yeesha arrintaa ayaan laga falcelinin yaan si khaldan iyo waddo khaldan oo sidaas oo kale ayaan lagaga falcelinin yaan la isku dayin marnaba in dad kale oo kale ay dhintaan oo ay arrintaa awgeed u dhintaan samirkii iyo gobonnimadii laydinku yaqaanay qoladii xalay gacantu gaadhay waxaan leeyahay adeegsada qolada kale ee iyaguna walaalaha ah uu ka soo jeeday qofkii xalayto gacanta geystay Qoondhaale ka geystay raggaa ku laayay waxaan leeyahay walaalayaal arrintaas dee hal la galo sida ugu qiimaha badan ha loo dabagalo ha la isku dayo si meesha ugu wacan inaad iska istaagtaan sida ugu wacan inaad ka yeeshaan gacan ku dhiiglihii inaad soo qabataan oo sidii sharciga reer Buuqodle iyo reer Caymeed u ahaa aydan baalmarin gacan ku dhiiglihii in la soo qabto arrintana la soo dhaweeyo oo aad halkaa idinkuna ka gashaan baa qolada kale ee xalayto uu ninkii gacanta geystay uu ka soo jeeday walaalaha iyagana sidaasaan leeyahay qolada reer Buuqodle kale dadka kale ee reer Buuqodle reer Caymeed waxaan leeyahay waxaad moodaa runtii iyo cadaaladiiba way idinka sii yaraanaysaa labadan qoys iyo laba qoys oo kasta oo kaleba waxaa laydinka baahan yahay inaad isticmaashaan sida quraanka Ilaahay inoogu sheegay وإن ضعيفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لما ولا وإهلا ودرسي حتى وحكلا كانان واستلام دحكلا سلوك دحلقا هدي أي متكمدي ديدانا تاكمدا قرطخلا وده ولا قرطخلا وده اللو تاقلاي وعركتاني دينا عقصو وده تشيستا وشغوطك شراعة إذا فريسة قرطع يا عدالة إنا كنا حقشان قويساس كان وعرفتوا كمدوة سوس وعطيبا اللوبة هاي وحي هوريه اللقاء الشيء سيرو الرئيسي وحي
waxaas iyagu waa meesheeda wixii aan laga heshiinin ee kale iyagana inaad heshiis kusoo dabaashaan oo sidii cadaalad loogu dhexgeli lahaa qoysaska ka shaqaysaan baa looga baahan yahay dadka kale ee reer caymeed ee waxgaradka iyo culimada iyo cuqaasha iyo dadka ilaahay dadka u xil saaray ee mas-uuliyiinta ahba waxaa laga rabaa dibad iyo gudaba inaa arrintaa wanaaggeeda ka shaqaysaan labada qoys ee arrimahooda soo noqnoqdeen iyo wixii kale idiin yaallaba runtii halkaa marka waxaan leeyahay reer buuhodlo waxaad moodaa beryahan waa idinka jiiftaa oo runtii aad iyo aad bay idinka jiiftaa waxaan u malaynayaa runtii iyo cadaaladii iyo intii ilaahay idinku naxariisan jiray ee aad taqaaneen baad moodaa inaad ka gaabiseen halkaa qoladaa marka sidaasaan leeyahay waxaan kaloo idiin sheegaya qolada sheegatay maamulka somaliland ee arrimahan ka dambaysa ee gacan ku-dhiigluhu u gelayo ee marka horena dadka makasta iyo waxmagaratada dhagaha usoo saaraya inay dhibaato sameeyaan oo shaqadoodii hadda noqotay nimanka muuse biixi oo hogaaminaya shaqadoodii hadda waxay noqotay inay dhulbahante ka dhex kalluumaystaan oo is yidhaahdaan si kale oo ku joogi kartaan ma jirtee dadka ood kala fogaysaan iyo iyagood isku dirtaan iyo inaad tidhaahdaan ciidamo beenbeene baanu idiin soo dirinaa idin kala dhex gelaya war gobolka cayn waa taqaanin balle qolada somaliland sheegatay ciidan aa usoo diraysaanna ma jiro wax laydinka baahan yahayna ma jirto dhibaatada aad ka wadaan iyo gacan ku-dhiiglayaasha aa marba qarinaysaan oo dabada marinaysaanna waa ognahay kuwa aad dhegta wax u soo saartaan oo soo dirtaan oo soo adeegsataan oo waxmagaratada ah oo dadka dhexdiisa ana iyagana waa ognahay waana idinka shaqaynaa waana idinka sokaynaa afcaasha iyo ficilada aad kula kacaysaan gobolada sool iyo sanaag iyo cayn ee tan hadda u dambeysay xali gocondhaale ka dhacday ee ka mid tahay waa laydinla socdaa indhahana waa idinku haynaa runtii idinkayna idinku soo noqonaysaao ninkii balaayo ka shaqeeyaan way ku soo noqotaa waa wax iska cad oo sunnaa weeye ninkii aafe iyo dhibaato ka shaqeeya way kusoo noqotaa waana iswada ognaado waa isnaqaanaado waxba inaguma kala qarsoona qoladaa marka soo adeegsatay ee dadka kan dhegta wuxu soo saartay ee marba meel kasoo gelaysa baa arrimahan wadda oo waxaan idinku baraarujinayaa dadka guud ahaan dadka gobolada sool iyo sanaag iyo cayn dega waxaan ku baraarujinayaa arrinta tan dhacdooyinkii sool iyo kuwa dhacdooyinka faraha badan ee cayn iyo kuwa sanaag iyo xudur ka dhaca intaba waa ogtihiin waxaa laga soo abaabulaa oo laga soo diraa waa hargeysa weeye hargeysaa laga soo diraa ka feejignaada tala midaysanna ka yeesha baan leeyahay waayahay ilaa hadda waxaa khadka tiraafika si toosa ugu jira aqoon-yahan cismaan khayr oo kamid ah qubajoogta gobolada s c cismaan oo dhinaca kale isimada iyo waxgaradka gobolada s c waxay ku sugan yihiin magaalada garowe isimada laftigooda maxaa baa u diraysaa aqoon-yahan cismaan cuqaasha iyo isimada iyo waxgaradka iyo ningarboodka iyo aqoon-yahanada iyo dhalinyarada iyo hablaha iyo hooyooyinka sharafta iyo karaamada leh reer buuhoodle gobolka cayn iyo gobolka sool iyo sanaag intaba waxaan leeyahay war dadka yaan laga daalin dadka wanaagiisa iyo nabadgelyadiisa yaan laga daalin dadka ha la dhex yimaado dadka waxyaalaha ku kala dhex jirjira ee mugdiga ah ha laga saaro ha loo kala xaq sooro dadka hadda dee siyaasadii garowe dhammaantood dawlad cusub baa ka dhalatay ha lagu soo noqdo gobolka cayn iyo buuhoodle ha ku soo noqdeen isimadu sida ugu dhaqsaha badan iyo cuqaashu iyo dadka kale ee mas-uuliyiintiiba ha lagu soo noqdo ha la dhex galo arrintaasi maaragtay si dhiibliya oo hoose oo qoysa ha loo dhex galo labadaa qoys haddana qoys bay sii yihiin gaar ahaaneedoo waa la ogyahay si qoys ahaana arrintaas ha loo dhex galo arrintana ha la caddeeyo oo meesha dhibaatada idinkaga socoto waa ogtihiin reer buuhoodla waa ogtihiin
meesha Hargeysa wadada Hargeysa dhibaatadu idinkaga socotaa oo idinkaga imanaysaa oo waxa la rabaa maalinba laba reer iyo laba qoys oo dhulbahantaa in laga soo jeesto oo nimanka kale shaqo kala ma hayaan Hargeysa fadhiya sida ay marba laba qoys isugu diri lahaayeen oo Faysal Cali Waraabe iyo ina bixiyo iyo wax kale kama shaqeeyaan marka arrimaha nimayo waxa lagu barnaamijsanaado dadkana si cadaalad ah oo sharciga idin yaala iyo ka Ilaahayba waafaqsan dadka ha lagu dhex galo oo dadka arrimahooda ha lagu xalliyo dhalinyarada wax iska leynaysa baxsanaysa lala fakanayo yaan laga yeelin waa in dhalinyarada wax leynaysa gacan ku dhiiglayaasha fakanaysa waa in la soo qabto oo loo gacanta loo geliyo cidii qisaastooda lahayd waa in la soo qabtaa sidaasaa ku kala badbaadaysaan awlaa ku kala badbaadi jirteen mariyagana waayahay ugu dambeyntii aqooyan Cismaan Khayre maxaa ku soo gudbinaysaa waraysigaaga adan adigoo mahadsan adiga iyo dadka shacabweynaha reer SSC waxay dhageysanayeen magacayga iyo muuqaygaba yaqaana waxaan leeyahay wardal dhan oo qabiil uu iska haysto kale oo qabiilkii lahaa uu gurada laalaadinayo oo gobolka Sanaag ilaa iyo Farheer inta u dhaxaysa baa degtaan gobolka Sool iyo gobolka Cayn iyo Sanaag oo aad cashuurta ka qaadataan oo maamul u samaysataan oo nabadgelyadiina ilaashataan oo Puntland ka qayb noqotaan oo federaalka ka qayb noqotaan baa loo baahan yahay waxaa damiir darraa runtii oo wax laga xumaada ah in wiilal yaryar oo Hargeysa iyo Wajaale iyo Gabiley iyo Dacar Budug ka yimi ay intay ku yimaadaan dhulkiinii ay cashuurta idinkaga qaadaan oo baabuurtiina ay baanaan oo jeebabkiina baadhaan ilaah weyn baanayna waa wax laga yaqyaqsoodo way runtii wax laga yaqyaqsoodo dadka sidii ay u celin lahaayeen meesha uga kaxayn lahaydeen ka shaqeeya sidii ay u midoobi lahaydeen ka shaqeeya sidii shir degdega isimada 13 isim waxaa leeyahay 13 isim dadka idinka ulul amar u ah idinka xukuma idinka Ilaahay idinkala xisaabtamaya sidii ay shir degdega u qaban lahaydeen oo baaq u diri lahaydeen oo dalka iyo dadka ku soo duulay uga saari lahaydeen oo shicibka ugu diyaar garay lahaydeen inay iska saaraan oo shicibka u midayn lahaydeen oo dadka isugu keeni lahaydeen ka shaqeeya Ilaahayna ka baqa yawmul qiyaama waa la idin weydiinaya xisaab baa idin hor imanaysa mas'uuliyad baa idin saaran dadkan idinka idin doorteen idinku dadka maydaan dooran isimada waxaa leeyahay idinku dadka maydaan dooran dadka idin doortay dadka Ilaahay uga baqa oo u cadaalad sameeya oo dadka ka kiciya cadowga ku habsaday dadka ka kiciya oo dadka midnimo tusa idinkoo midaysan oo gacmaha haysta dadka tusa oo dadka codkiina tusa oo dadka aragtidiina iyo meesha aragtidiina tahay tusa oo dadka isbaaq u jeediyo baaq u diro oo dadka kiciya oo dadka ka saara cadowga ku habsaday dadka ka saara 13 isim iyo 100 iyo saa'ilka cuqaasha ka sii muhiimsan intaasaan faraya dadka kale ee shicibkaana waxaan leeyahay war isimadiina iyo cuqaashiina iyo waxgaradkiina ka amar qaata oo waxay idinku taliyaan yeela oo talada soo dhaweeya oo iska saara Muuse Biixi iyo Soomaali diidka dhulkiinii doonaya inuu Soomaali ku tootargareeyo oo ay yidhaahdaan Ingiriis baa meel loo calaamaday war maanta Ingiriis calaamaday wasangeli baa Ingiriis calaamaday iyo harti waqooyi war ninkan runta u sheego iska kiciyo oo dhulkoodii ku celiya baan iyagana intaa odhan lahaa adeerow aad baan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga xumahay xalayto runtii dilkii ka dhacay Gocandhaale iyo raggii ku dhintay ee ku dhaawacmay aad iyo aad baan uga tacsiyeynayaa runtii dadka reerka qoyskaana waxaan leeyahay sabir iyo iimaan hana isxakameeyeen oo dadka Ilaahay
wuxuu ugu jecel yahay dadka dhibkooda iyo cadhadooda qarsaday kuwii sidaa noqda allah idinka dhigo waana idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waaye kaasi waxa uu ahaa aqoon-yahan cismaan khayre oo ku sugan dalka dibadiisa islamarkaana ka mid ah waxgaradka gobolada SCC oo ka hadlayay shaqadii ka dhacday deegaanka Qocondhaale iyo Buuhoodle aad iyo aadna waraysi kaga mahadcelin aqoon-yahan cismaan khayre. idinkaa mudan.